بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبي هريرة وحديث كوباده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث كان بخاري ومسلم باورينيا ومتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. wuxuu leeyahay nabigeenu sala allahu calayhi waaalihi wasalam: kelimataani, laba kelimo ama laba eray, khafiifataani cala allisaani, ku fudud carabka marka carabka uu dhahayo, odhaahda carabka ku fudud, carabku markuu ku dhawaaqayo ku fudud xagga dhawaqa. thaqiilataani fi lmiisaan, maalinta qiyaama markii la tagana miisaanka ku culus, xasanaadka iyo ajirka labadaa kelima laga helayo marka miisaanka la saaro, ajirka ayagaa ka imaanaya marka miisaan la saaro ku culus. xabiibataani ila araxmaan, allaha raxmaanka ee naxariista caamka alana iyo midda khaaska aaba labaduba agtiisana loogu kalgacayl badan yahay. idan fiiri addoonka ilaahayow, addoontii ilaahayey, nabigeenna xabiibkeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu leeyahay laba kelimo oo odhah ahaan marka lagu dhawaaqayo carabka ku fudud, miisaan ahaan maalinta qiyaamo xasanaadka iyo ajirka ka imaanayana ku culus miisaanka. allaha raxmaanka ana agtiisa looga kalgacayl badan yahay oo laga jecel yahay. labadaa kelima ma taqaanaan? waa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim. labadaa kelimo intee in leeg bay kugu qaadanaysaa? bal intaad saacadda fiiriso ama mobaylka aad daqiiqad ku buuxiso, waxaad dhadaa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim. meeqa jeer baad ku qowli kartaa ama aad dhihi kartaa. hase ahaatee ilaahay agtiisa meeqa xasanaad ama meeqa ajir ayaad dhigatay. haddaba addoonkii ilaahayow, addoontii ilaahayay, naftaydaan la hadlayaa, yaanan dayicin ajirka intaa dhan, oo carruurteenna aanu barro, oo haweenkeenna aanu barno, oo aan raggeenna barro. macallimiintuna si khaas ah ha u bareen ilmaha biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. amaa labadaa kelima macnahoodu, subxaana allah, ilaahay ceeb ma leh. nacam, ilaahay ceeb ma leh tabaaraka wa tacaala. ilaahay wax ma dhalin oo ilaahay lama dhalin. ilaahay ceeb ma leh, ilaahay ma seexdo, ilaahay cunto ma cuno. allah ceeb ma leh, meel uu ka soo bilowday ma leh, meel uu ku dhammaadana ma lahan tabaaraka jalla wacala. idan ilaahay ceeb ma leh. wa bixamdihi, allah tabaaraka wa tacaala waa mahadsan yahay maca xamdihi, ayadoo mahaddiisana lala qabo. alxamdu lilaahi calaa kulli xaal, xaalad walbaba ilaahay waa mahadsan yahay tabaaraka wa tacaala.
xaalad walba ilaahay mahad buu leeyahay tabaaraka wa tacaala subxaana allahi wa bixamdih nicmaduu isiiyey ilaahay baan ugu mahadinayaa alla waa mahadsan yahay annagana waanu ku mahadinaynaa tabaaraka wa tacaala caafimaadkii mahad aan la soo koobi karin buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala subxaana allahi mar labaad alla ceeb ma leh allihii alcadiim allihii weynanka badnaa tabaaraka wa tacaala idan xadiidka koobaad waa intaa xadiidku waa kooban yahay macno ballaadhan buuse leeyahay laakiin marka hore waxaan idhi si kooban baan